بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملكستو أدوكتان با waxaana ahay maxamed axmed xaaji cagmadhige wariye Soomaaliyeed oo muddo dheer ku jiray arrimaha warbaahinta iyo wararka tibintooda hadday tahay Soomaaliya gudaheeda xilliyadii hore iyo intii dambe qurbaha waxa ii suurto gashay Allah awoodana uu ii suurto galiyay in aan tabiyo warar badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya waxa gudaha ka dhacaya iyo Soomaalida qurbaha joogta intaba markii aan arkay muddo dheer aan eegayay waxa ii soo baxay arrimo aan qumanayn inay nagu soo wajahnaan karaan laakiin Allah awoodda ayaan qabnaa maadaama aan nahay dad islaam ah oo mar walba duceysta 60kii sano ugu dambeeyay Soomaaliya xor bay ahayd laakiin 30kii sano ee ugu dambeeyay xaalku ma aanu qumanayn ayadoo 30kii sano ka horreeyay dawladihii kala jirana ay isbedeleen dad badan oo Soomaaliyeed ay tabanayeen cadaalad darro iyo amuuro kale oo la soo gudboonaaday laakiin waxba waxa ka daran laga bilaabo 1991kii ismaandhaaf xoog la ayaa soo kala dhex galay dadka Soomaaliyeed maadaama aan barwaaqadii la haystay la oran alxamdulillah ilaahayna aan loo mahadnaqin taasi waxay keentay in alla ka fogaansho badan uu ka dhaco dalka Soomaaliya marka la fiiriyo waxyaabaha ka dhacayay 30kii sano u dambeeyay taasoo u muuqata inay tahay mid aan qumanayn adduun iyo aakhiraba hobiyayaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku garaacay dadka wax garaacaya waa Soomaali kuwa la garaacayana waa Soomaali sun ayaa lagu shubay bariga iyo badda Soomaaliya dadka ku shubay waa Soomaali kuwa loogu shubana waa Soomaali cunto dhacday ayaa daafaha caalamka laga soo gaday si bareera dalkana lagu iibiyay kuwa iibinaya keenay waa Soomaali kuwa laga iibinayana waa Soomaali daawo dhacday ayaa dayuurada loo raacay rag iyo dumar la soo iibiyay kadibna dalkii la keenay oo lagu baahiyo gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka dadka keenay waa Soomaali kuwa laga gadayay daawada dhacdana waa Soomaali haddana dadkii wali waa nool yihiin oo in badan aan dhiman Allah awoodda ayaa wax dila waxna nooleeya dadka Soomaaliyeed ee dhibkaas geystay qaarkood waa dhinteen qaarna waa nool yihiin oo wali waxay ku howlan yihiin dhibaataynta ummadda Soomaaliyeed qoray la qaato oo qof lagu ridaa ma aha dhibaatayn laakiin siyaabo kala duwan ayaa ummadda loo dhibaateeyaa cadaalad darradii waa joogto dulmiguna waa joogto kama daalaan kuwa dulmiga sameeya kuwa cadaalad darrada sameeyana kama daalaan shahaado suur badan ayaa jira oo isagu ku baahsan dalka gudihiisa iyo dabadaba kuwaasi oo aan aaqiradooda aan ka fakirin laakiin adduunka ka fakiray dad badan oo la dulmiye ayaa jira kuwii dulmiye qaar ay dhinteen qaarna ay nool yihiin kuwa wax dulmiyana kuwa ayaa ku taageera oo ku faraxsan dulmiga ay wadaan iyagoon aaqiradooda ka fakirin intaas waxaa dheer muranka siyaasadeed ee maaraha loo waayay ee 30kii sano u dambeeyay jiray kaas oo u dhaxeeya guud ahaanba bulshada marka laga bilaabo magaalo madaxda gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka dhib badan baa ka jira dadkuna waa dhiban yahay kuwa dhibayana waa Soomaali haddii haddaba xaaladdu ay sidaa tahay mustaqbal ceenkeeya ayaa muuqda mustaqbal mugdiya ayaa muuqda waxaana sal u ah alla ka cabsiga oo ka yaraaday guud ahaanba bulshada gaar ahaan inta horboodaysa dhinaca siyaasadda jago kastoo ay hayaan maaha macnaheedu 30kii sano u dambeeyay dadkii xilalka kala duwan qabtay jago kastoo tahaba inay isku raaceen xumaan laakiin in yar oo fara ku tiriso ilaahood ka baqaya ayaa jira balse waxa badan inta aan aakhire ka fakirin ee adduunka ka fakirtay dadaan quraacan dadaan qadin dadaan cashayn xoolahoodii aaway dadaa ku tagay dadaa maalin walba la barakiciyaa hooyooyin 80 jira aabayaal 75 jira ayaa maalin walba la barakiciyaa oo aan cunto cunin jidiinkoodan aan wax marin kuwa barakicinaya waa Soomaali anigoo maxamed axmed xaaji cagmadhiga ayaan barnaamijyo badan telefishinka caalamiga ee Universal ka daayay barnaamijyadaas waxaan ka xasuustaa barnaamijka anugu magac daray isku maqanta lagu maqan yahay oo yaa isku maqan waa Soomaali yaa ku maqan dad ajnabi ayaa ku maqan oo qaarkoodna ay agdegan yihiin qaarna aanay juqraafi ahaan u dhaweyn laakiin ay u hanqal taagayaan dhulka barwaaqada ah ilaahay uu ku manaystay barwaaqada laakiin dadkiisu ay tacbaan ka yihiin waxa ii muuqda mustaqbal mugdiya sidoo ugu muuqdo dad badan oo dhici karto fariinteedu inay gaarto oo muxuu yahay mustaqbalka mugdiga ahi
Soomaali badan ayaa qaxootiga kadib markay ka barakaceen dhibta Soomaaliya ka jirta carruurtoodii bay la balanbaleen boqolkiiba 80 carruurtii fara kuma hayaan iyaga laftoodana cudurro kala duwan ayaa ku qabsaday meelo kala duwan oo dunida ah dalay u laabtaan uma muuqdo sida xaalku yahay 2020ka kuwa gudaha jooga waxay u xuslinayaan anaa raba iyo anaa iri iyo looma dhama iyo waana la ka tagay iyo waana la dulmay iyo wixii la mid ah taasuna ma qumana maantay qof kasta oo Soomaaliya jooga waxa uu u xuslinayaa sidoo dalka uga tagi lahaa oo meel ka mid ah dunida uu qaxooti ugu noqon lahaa lacag fara badanana lagu bixiyaa tahriibida haddii ay dhacdo waqti aan dhaweyn inay arrimo badani jireen soo ma dhici karto waqti aan naga fogeyn in dukumentiga wadamada shisheeye si bilaash lagu helo taasoo keeni karta dadka oo dhan oo Soomaaliyeed inay dalka ka tagaan hadday taasi dhacdo waxa soo socda taariikh aan weligeed adduunka ka dhicin oo ah halkan Soomaaliya ayaa la oran jiray Soomaali ayaa deganaan jirtay waxay noqdeen wax dhintay iyo wax qaxootiya dalkiina waxa qaatay qolo kale arrintaas ma foga haddii aan la isbedelin oo Allah awood la tala saaran oo shacabka degan magaala madaxda gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliya oo dhan aysan fahmin oo aysan fadhiga ka kicin oo aysan ka fakirin war qolada idin horboodaysa maxay tahay halkaysa idin wada waxay dadku isla dhex maraan Soomaaliya dadka dhibka ku haya ee siyaasadda horboodaya waa laba qayb ayagu go'aansaday inay qaabkaas qaldan u dhaqmaan iyo qayb laga dhex hadlayo oo qolo shisheeye ay ka dhex hadlayso Allah awood leh ayaa og shacabkow isbadbaadiya oo aan isbadbaadino haddii kale waxaa dhici karta arrin ka duwan arrimaha adduunka maanta ka jira in laga arko dalka Soomaaliya iyo Soomaali dadkii la oran jiray 2020 markaan fiirino gulufka colaadeed iyo ismaandhaafku wuxuu la mid yahay 1991kii war aaway dadnimadii aaway diintii aaway alla ka cabsigii haddaad adduun ka fakirtid aawa aakhiradaadii dadka siyaasiyiinta kuwii hore iyo kuwii dambaba kitaabka kariimka 114 ayay gacanta saareen ayagoo leh waxaan ka fogaanaynaa xumaanta waxaan u danqanaynaa una dagaalamaynaa inaan u shaqeyno dalka iyo dadka iyo diinta danta dalka mooyaane wax kala qaban mayno laakiin boqolkiiba boqol waxa hubantiya rag badan iyo dumar badan oo xilal soo qabta iyo kuwa hadda hayaaba inaanay danta dalka iyo dadka aanay u xuslin oo ay tooda gaarka iyo wax aan fiicnayn ay bulshada u horseedeen si dhib la'aana waxaan u sheegi karaa in alla ka cabsigu ku yaraaday dadka Soomaaliyeed taasina ay keentay inay galaafteen dadka liita ee maatida ee ayagu aan maciinka haysan ceelna uusan u qodnayn cidina aanay u maqnayn miyaan berri wax la iska weydiinayn oo aan la is oranayn xaggee dadka iyo dalka lagu ogaa waxaa ii muuqata anoo hadalkayga soo koobaya siyaasi kasta markuu hadlayo 30 sano u dambeysay khudbadiisa bisinka ayuu ku bilaabaa iyo salliga nabiga alayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu sheegaa midnimada iyo Soomaalinimada laakiin dibnihiisa iyo calooshiisa ismale cidna ma beeni karto dadka Soomaaliyeedow fadhiga ka kaca oo dantiina garta oo dalka iyo dadka badbaadiya kuwa aan qumanayn ee inta aan sheegay ummadda oo dhiba kula dhex jirow inta dhimata waaba dhimatee intiina nooli toobad keeno Ilaahay barya oo dhibka ka daaya dalka iyo dadka waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo fariintan muhiimka idin soo gudbinaya waxaan Allah awood leh ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo balaayada adduunka socota oo Soomaaliya ay bulaasho oy barwaaqowdo oy barakowdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh